هذه سنة سنة تكون عشان إنسان عمروين كتكون عشان إنسان في رمضان وحكا خير بدن مسكين قحوتية يكون رفاطون واحتسام بك خير بدن بإجماع المسلمين خلافنا مجرو أو شيء هذا أو هذا لكن شيطان كايدين دراي لو قيد انتو يدحوا عضنا الأردن مسلمين تنكلي حتى شيطان باكتم بيا ما إلهي بقى يوافج لو ما وافجنين ما عدلا فردا لكن أقون درة كويسة ثم قرنا زي حديث ضعف يكون جري ودرة تحسين جري هل عالم واحد يا قدر الشيطان كان من 1000 عابد عالمك وانك إلهي يقانك لقرني شيء ولا بمشي لا دقل هاي ماشي مضنا عاميو ويسكو أردي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. caawa walaalayaal waxaan rabaa in aan kelmad ithaareeyo ku saabsan muuqaal uu leeyahay sheekh xasan xuseen oo social mediaha aada u dhex wareegaya oo ku saabsan sheekha oo ku talagalay in uu ka hadlo xajka iyo cumrada oo lagu noqnoqdo oo sunnada ah in laga fiican yahay xaaladaha qaarkood ma diidana in lagu noqnoqdo inay fiican tahay ma diidana laakiin qasadkiisa wuxuu ahaa siday ila tahay xaaladaha qaarkood in laga fiican yahay inuu diidan yahay laakiin hadalkiisii baa waxaa soo dhexgalay hadallo deelqaaf iila muuqday oo qaabkii uu sheekhu u rabay ka leexiyey baraha bulshadana aad iyo aad la isula dhex wareegay anigana la igu yimi oo maxay ahayd la igala hadlay hawsha marka waxaan goostay sheekhana inaan ugu hiiliyo kana hiiliyo baan ku talagalay hadalkaygan baraha bulshada waxaa aada u dhex maraya kiliibkaas ama muuqaalkaas oo sheekhu uga hadlaya mas'aladaas wuxuu leeyahay sheekhu ciddii dhegaysatay way dhegaysatay cidda kalena way dhegaysan doontaa sheekhu wuxuu ku bilaabayaa xajka iyo cumradan aad ku noqnoqonaysaan waxaa ka khayr badan biijmaaci lmuslimiina bilaa khilaaf lacagta ku baxaysaa in la sadaqaysto oo dadka dantu hayso qaxootiyada ee meel kastaba ha joogaane loo sarfiyo lagu sarfiya dhanka baa ka khayr badan wuxuu isticmaalay baa ka khayr badan oo halkaa waxaa ku sugan inuusan afdaliyada mooyaane inuusan u diidin fadli inay leedahay xajka iyo cumradoo la badiyo laakiin nasiib daro isla minidkiiba wuxuu horey kaga dhejiyey ama kiliibka waxaa ku jira sheekha oranayo shaydaan baa laba qeyd idin xiray markaa cumradan iyo xajka ku orordaysaan oo ku noqnoqonaysaan waa shaqo shaydaan baa laba qeyd idin xiray waxaa weliba sii leeyahay muslimiintana aad ka leexataan jidkooda labadan hadalku waa badnaa labadan hadal baa ka qara weynaaday oo ka mug weynaaday oo hadalkii uu sheekhu rabay in uu ka fadwoodo oo ahayd khayriyada maxay ahaydayay maxay ka sarfiyey haddana marka ugu dambaysuu sheekhu ka baxayo wuxuu leeyahay hadda ha imoodina inaan necbahay xajka badan iyo cumrada badan laakiin waxaan idin leeyahay wax ka khayr badan baa jira oo halkaasuu sheekhu u jeeday wax ka khayr badan baa jira oo weliba xaaladaha qaarkood ma aha xaalad kastoo xajka iyo cumrada la badiyo ma aha xaaladaha qaarkood marka masaladan aan rabaa inaan dhowr 10 daqiiqo meelahaas ka iraahdo waa marka koowaad horta